بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meela joogtaan baa idin salaamaya. waxaan jeclahay inaan maanta sii wado haddii ilaahay yiraahdo waxyaabihii aan uga hadlayay iyo casharadii aan uga hadlayay taariikhda ummadaha islaamka. runtii horaan uga cudur daartay anigu expert kuma ihi, laakiin waxaan u arkay inay aad muhiim ugu tahay in la fahmo horta kooxaha islaamka yaa ugu soo horreeyey, yaa ugu dambeeyey, maxay ku kala duwan yihiin, muxuu yahay farqiga u dhaxeeya, isbedeladii dhacayay ummadda islaamka ku dhacayay maxay ahaayeen oo salka ku hayeen. waxyaabahaasoo idil markaad ogaato wax fara badan ayaa kuu soo baxaya oo cilmiya. marka sidaas ayaan runtii u daneeyey ciddii doonaysa inay maxay ahaato wax ka ogaato ummadda islaamka qaybaheeda ay u kala baxaan iyo sida ay yihiin. waxaan idin ballan qaaday waxaan soo maray qaybo kala gedisan oo fara badan oo soo maray oo aan soo qaatay qaybtii koowaad, labaad, saddexaad. waxaan ku joojiyey muctasila iyo nimankii la dhihi jiray murji'a iyo nimankii la dhihi jiray jabariya ayaan ku joojiyey. waxaan idin ballan qaaday inaan sii wadi doono oo aan geli doono imaamyada. markaas ka bacdi imaamyada ayaa soo baxeen, inkastoo imaamyada qaarba ay jireen xilliyada qaarkood oo casharkan cashar ka horreeyey waxaa jireen imaamyadu way jireen xilligaas naftarkoodu. kow aan idiin sheego siday usoo kala horeeyaan imaamyadu. madhabka waxaan qaadanaynaa markaan shiicada runtii mudicili inaan ka hadlo oo mana aqoon durugsan oo malihi. waxaan ka hadli doonaa sunniga haddii ilaahay yidhaahdo oo asaga naftarkiisu badweyn ah runtii. waxaa ugu soo howeyn ugu da-weyn imaamka la yidhaahdo caanka ah la yidhaahdo abi xaniifa ayaa ugu da-weyn, wuxuuna dhashay 69 hijrada ilaa 70 ayuu dhashaa la yidhaahdaa hijrada. macnaha waxaa weeyaan 53 sannadood ka bacdi geerida nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi ilaa 54 sannadood 56 sannadood aan leeyahay cafwan 56 sannadood ka bacdi geerida nabiga ama 57 sannadood ka bacdi intaba waa la yiraahdaa ayuu dhashay abi xaniifa. marka wuxuu ku dhow yahay aad ayuu ugu dhowaayay xilligii nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi. imaam waxaa la dhihi jiray abi xaniifa waxaa la dhihi jiray imaam nucmaan bin thaabit abi xaniifa ayaa la dhihi jiray. wuxuuna kasoo jeedaa asalkiisu iiraani weeyaan, gobolkaas khurasaan la yidhaahdo meelahaasuu ka yimaadaa kulley dhulkaas iiraanta xaggeeda weeyaan. wuxuu dhintay cimrigiis wuxuu gaaray 68 sannadood ayuu maxay ka bacdii uu dhintay oo ilaahay maxaagiisa u safray. imaam weyn oo cadiim ah weeyaan runtii oo aad iyo aad u qiimo badan faqiih ah. ka bacdi ayaan faallay doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin imaamyada naftirkoodu. waxaa ku xigay imaam maalik bin anas radia allahu canhu ama raximahullah. waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan imaam maalik wuxuu dhashay 93 sano markii hijrada ay ahayd ayuu dhashay imaam maalik. imaam maalik waa imaam weyn oo jaliil ah, kitaab weynna qoray oo la yidhahdo muwada la yidhaahdo ayuu qoray. waan ka sheekay doonaa asagana xilligiisa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaa ku xigay cimrigiis wuxuu gaarayaa la yidhahdaa 84 sannadood ayuu gaarayaa la yidhaahdaa. wuxuu kasoo jeedaa asalkiisu carab weeyaan, maxay ahaato reer madiine ayuuna ahay oo magaalada madiina ayuu maxay ahaato inkastoo taariikhdiisa la isku khilaafsan yahay laakiin haddana waa carab weeyaan ninkaasu calaa kulli xaal imaamkaas weyn oo cadiimka. waxaa ku xigay imaam maxamed idriis ashaafici. wuxuu dhashay 150 hijrada ayuu dhashay, wuxuuna ku dhashay falastiin ayuu ku dhashay. da-diisu waxay gaartay 54 sano. waana haashimiye weeyaan, nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu qaraabo la ahay imaam shaafici raximahullah. axmed binu xambal imaam axmed binu xambal ayaa jira asna oo dhashay 164 hijrada 153 sannadood ka bacdi geeridii nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi ayuu dhashay axmed binu xambal. wuxuu ku dhashay ciraaq baqdaad ku dhashay. da-diisuna waxay gaartay 77 sannadood ayay gaartay. marka afartaas qaybood ay u kala baxaan madaahibta waaweyn ee maxay ahaato ummadda sunniga ahu ay ku abtirsato. runtii haddaad maqasho dad dhahaya anigu sunnada iyo waxaan haystaa kitaabka qur-aanka, taas waxa weeyaan anugu ra'yigaas waa la yaabaa runtii aad iyo aadan ula yaabaa. maran habaabin ayuuna u egyahay. ummadda islaamka ah ee sunniga la yidhaahdaa guud ahaan afartaas madhab ayay soo hoos gashaa. inkastoo jiraan waxyaabo kaleeto oo jeebab ah laakiin imaamyadu waa afartaas weeyaan. marka la soco sidaan ayay u kala baxaan. marka madaahibtu sidaan ay u kala baxaan. waxaad arkaysaa xanafi ayaa ugu horeeya, ahna ninkii ugu horreeyey oo shiikhooda ahba imaamyada dhanba shiikhoodii weeyaan. atbaac aad u fara badan oo aad iyo aad iyo aad u fara badan ayuu leeyahay. waxaa la dhihi karaa ummadda islaamka boqolkiiba 40 qiyaastii
waxay raacsan yihiin madhabkaas maxay ahayd laga soo bilaabo turkiga ilaa ma yurubtaas dhexdeeda xataa wadamo badan ku yaalo yaryar meel walba waad arkaysaan calaamadaas rinjigaas ayuu leeyahay oo buluugaas tiqda ah waa kaas ahaa intaasoo dhan ayuu ku jiraa waa kaas ahaa dadkaas asbaacas faraha badan u leeyahay dad aad iyo masar laga bilaabo ilaa ma turkiga halkaas lasii aado qaybo badan oo kamida maxay ahayd carabtaas korkaas siyatul carab kamida iiraan korka soo geli dhulkaasoo dhan ayuu ku fadhiyaa bakistan hindiya waxyaabahaasoo idil waxay hoos tagaan madhabkaas xanafiga la yidhaahdo waa nucmaan abi xaniifa raximahullah kasoo gudub waxaa timaadaa xambali ama xanaabila waxa weeyaan waddanka sacuudi carabiya oo keliya ayaa si official ah loo yaqaanaa inuu haysto madhabka xambaliga waxaa kaloo la jira wadamada yaryar oo carabta ah oo maxay ahaato iyo sheegeen inkastoo imaaraadku ay yihiin maalikiye ay yihiin laakiin aduu sacuudiga ayaa lagu tilmaamaa exactly bilikhtisaar inuu yahay maxay ahaato xambali waxaa soo raaca soomaaliya iyo geeska afrika oo hadda ay aad ugu soo badatay madhabka xambaliga oo kala wareegi rababa shaaficiyada kala wareegi raba ayaa lagu soo daraa iyagana meelo kale oo fara badan oo jawaab oo sida Indonesia oo kaleeto wadamadan carabta oo kaleeto meelo fara badan oo ku jira ujeeda halkaas Masar oo kaleeto maxay ahaato waa laga yaabaa in laga helo inkaas ku badnayn adiga meelo yaryar jira oo madhabkaas xambaliga ah oo gaaray ayaa jira laakiin waddanka Sacuudi Carabiya ayaa wuxuu u yahay xarun oo u yahay Soomaaliyana aad ugu badan yahay meelahan bariga fogna xataa meelaha qaar uu ku sifaafay macnaha dad atharta ka qaatay oo aad ugu ta'athuray ayaa jira xambaligu waa kaas ah waa madhabka ugu dadka yar weeyaan la yiraahdaa waxaa qaybta dadka badan oo labaad ay noqonayaan madhabka maalikiga la yiraahdo maalik bin anas atbaacdiisu aad ay u fara badan yihiin asaga naftirkiisa maqrib carab oo idil waxa way maalikiye weeyaan maxay ahaato ii sheegeen wadamadan carabta qaybo kamid ah meelahaas jawaab ayaa ku jira iyagana oo kuwaas aad arkaysaan meelahaas oo kale ku jiraan bariga fog oo kaleeto waa dad kuwait ah runtii oo dhib badnay weeyaan maalikiya la yiraahdaa kasoo gudub shaaficiya oo imaad shaaficiya Soomaaliya hadda sida maabka ka muuqata iyo Yemen iyo carabtaas wadamaas carabta dhexdaas Falastiin iyo dhulkaas iyo meelahaas Indonesia oo aad u dad badan oo dadkooda aad u fara badan yahay waxa la yiraahdaa shaaficiya weeyaan laakiin badanaa shaaficiyada iyo xanaabilada waa isku maran yihiin aad ay isugu maran yihiin mararka qaarna nimanka la yiraahdo xanaafta way isdhex galaan oo waxbay wadaagaan sida Afghanistan oo kale meelahaas ay iska galaan ala kulli xaal shaaficiyadana dadkaas qaaradda meeshaad uga jeedaan Afrika geeskaas Afrika oo idil xeebaha Afrika inta badan intaan ka ahayn maxay ahaato ii sheegeen meelahaas madow oo kaleeto oo ummado kaleeto ay soo geli karaan madahib kaleeto sida maalikiya wax noocaas ay soo geli karaan laakiin majority-gu waxa weeyaan shaaficiye weeyaan marka shaaficiyadu dad fara badan ayay idin naftirkeedu leedahay laakiin ma gaaraan xanafiyada iyo maalikiyada ma ku dadama xanafiga ayaa kow la dhihi karaa maalikigana laba la dhihi karaa saddexna waxaa la dhihi karaa shaaficiyada la dhihi karaa marka maxay ku kala duwan yihiin ay ama karta hadhow qaybta dambe ku soo qaadan doona hadii Ilaahay yiraahdo waxa laga yaabaa wax badan oo hadda la kala tilmaamayo in hadana isku mid yihiin laga yaabaa isku meel isugu tagayaan laga yaabaa oo midalan shaaficiyada iyo xanafiyada maxaa leeyahay maalikiyada shaaficiyada iyo xanafiyada in fara badan ay wadaagaan oo waxa la yiraahdaa waa labada mabda ama labada madhab oo walaalaha ah weeyaan mataano weeyaan maalikiyaduna runtii kama dheeraba maalikiyada shaaficiyada iyo xanafiyada aad ay isugu dhow yihiin kasoo gudub kooxay yar oo kala fara badan halkan ku arkaysaan kuwa la yiraahdo shiica ismaaciili kuwa la yiraahdo shiica ismaaciili kuwa la yiraahdo maxay ahayd Jaafari waa Iiraan iyo wax noocaas ah Jaafari la yiraahdaa Zaydiya oo nimanka dariska nala ah Yemanta shiicada Zaydiyada la yiraahdo very special weeyaan waa ka gaar weeyaan shiicooyinka kaleeto waxay u dhaxayaan sunniga iyo shiicada ay u dhaxayaan kooxa kaleeto yar way jiraan waxa kale oo jira ibaadi kuwa la yiraahdo oo Cumaan wadankaas Cumaan la yiraahdo halkaas ku yaala arkaysaan calaamadaas leh waxa la yiraahdaa khawaarij weeyaan khawaarijtii ka dambeeyaan kuwada mu'tadiliinta ah macnaha aan dhib ka badnayn oo dagaalamin oo aan dadka takfiirin ay ku jiraan waxa la yiraahdaa waa maxayaato nimanka la jira khawaarijta kuwa ugu fiican waaya la yiraahdaa Ahmadi kuwa la yiraahdaa jira oo Ahmadi waxa weeyaan waa quraaniyiinta wax noocaas weeyaan ayaguna way jiraanoo
meelay ku jiraan meelahaas hindiya iyo meelo yaroo laababa halkaasay ku jiraan meel walbay ka jiraan laakiin wax badan maahan la taaba kara maahan calaa kulli xaal sidaas ay yihiin madaahibta islaamku ay u qaybsan yihiin qaybta dambana waxaan geli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo madaahibtan waaweyna afarta ah maxay ku kala duwan yihiin siday isula shaqeeyaan farqiga u dhexeeya muxuu yahay anoo soo gaabinaya haddii ilaahay yidhaahdo runtii waan ogahay aad iyo aad ayuu programkan sensitive u yahay dad fara badanona way ku ta'athuraan marka ma jecli inaan hoos usii galgalo haddii ilaahay yidhaahdo calaa kulli xaal waxaan idinka siin doonaa information guud ayaan idinka siin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo haddaan runta sheegay ilahay baa waafajiyey subxaana wa tacaala haddaan wax qaldana rabbigii cafisaan weydiisanayaa walaaluhuna iga raalli ahaadeen waan ogahay aad iyo aad dadku waxyaabaha noocaana ay u qadariyaan ula socdaan laakiin waa dadaalaa baan inta tabartaya haddii ilaahay yidhaahdo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu